dugsiga hoose dhexe ee Dharkayngeeyo ayaa maanta si rasmi ah xadhigga looga jaray waxaana fulintiisa ka qayb qaadatay ururka iskooda oo ka mid ah ururada bulshada ee ku howlan arrimaha waxbarashada iyo caafimaadka. munaasabad bilan isla markaasina si heersan loo soo agaasimay ujeedkeeduna ahaa furitaanka dugsiga hoose dhexe ee Dharkayngeeyo ayaa maanta ka dhacday mid ka mid ah hoolalka iskuulkaasi. Oqaal dhalinyaro iyo bulshada reer Dharkayni waxay sheegeen inay ka faa'iideysan doonaan isla markaasina ka soo bixi doonaan kaalintooda. Anu waxaan ka socdaa organizationka iskooda kulay cid kasta waxa qabato laakiin anaguna qoladii hawsha wadee waa walba xilin supporter waxa la yiraahdo iyo waxa ay implemented wax taageera iyo wax fuliya. marka anagu organization ahaan waxaan nahayn organizationka fulinayay hawsha fulinteeda ayaan badan ka qabanay. wuxuu ku dhismay community contribution oo bulshada isku darsatay laakiin wax kasta talo iyo asaas laga bilaabay leeyahay. marka hore ina qofkan weekiya wax qaban karo iyo inuu strong wax qaban karo iyo weekiya yaa horta bal inuu la fahansiyo ama la tusaaleeyo baawanas markii ugu horeysay dadkii aan kala shaqeynay way ahaayeen dad Dharkayngeeyo deegaan laakiin oo ku jooga iyo dad dal jooga way ahaayeen laakiin waxa uu arkay markii inuu fuli kareen laakiin maxaa anagu ku dhiirigelinay inay hawshaas fuliso. hadda Caawil Cabdi Xayaan naga qayb qaatay qalabaynta iskuulka anaga markuu naga qayb qaadanay diyaasad barahan ugu ma qayb qaadan laakiin SRNF organization la yiraahdo oo aan la shaqeyno oo Denmark ka shaqeeya baa jira oo halka alaabta ka soo rara halkan kaliya ma ahan kala beer dhismayaal baan ka wadnaa hadeer ay wadeen oo qaybta isbitaalka qalabaynta iskuulka waxaan ka shaqeynaa badan organization ka shaqeeya waxyaabaha caafimaadka iyo waxbarashada. iskuulkan Dharkaynoo kale mar baan si indirect marka aan ka warramo iskuulkii waxa weeye waa la dhisay wuu fiican yahay weydinka arka sida uu u dhisan yahay ama sida uu socdo waa barnaamijka iskuulkiisa wacan baa hawshiisa u dhacday. waxa ku xigtay qalabayntiisii iyaduna si wacan buu u dhacday oo qalabkii waxa hadda lagu fadhiyo qayb ka mid ah baahiyihiisii labada arrimood waa la qabtay. hadda baahiyihiisa waxyaabaha dhiman ugu waaweyn waxa ka mid ah dayrkii iyo macallimiintii dhigi lahayd maadaama dadku dad iska cayloobay ahaa dad abaara soo maray ahaa dad colaha soo maray ahaa oo uusan macallimiinta isagu qabsan karin oo macallimiinta ay qabsadaan ay kharashka bixin karin. hadda baahidiisa dhiman dayrkii iyo macallimiintii ayaa ugu weyn wixii kale waa wax iska maartay iska daba raacisa u horeysa dadka urda joogta ee bahar same ee iskuulka maanta xafladiisa la dhigay noo dhisay aad iyo aad baan u salaamaynaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxa ay noo qabteen. Soomaalidu waxay tiraahdaa maan rag waa mudayaafkood kulli waxa kale oo Soomaalidu tiraahdaa halisi qafuuday laakiin xanaanaynteeda waa adag. qolada urba joogta waxaan leeyahay meel kasta ay joogto dalka ay ka joogto kulli de waxsiintu waa fududaataa laakiin waxa muhiim ah xanaanaynteeda. waxaan idinka ballan qaadanayaa inaad waxa masiiseen aan xanaanaysano oo aan hagaajino oo siyaabaha u soo bixisaan aan u qaadano ayii hore ee taagnaa ee deegaanka u baahnaa odayada ka hadlay dhinac kasta ay tahay. anigu waxaan leeyahay kolley de fariimaha tagayo maan rag waa mudcayaafkood baa leeyahay fariimaha tagaya yaa wax loogu qabanin oo yacnaa waxa weeyaan caqabad bay nagu noqon karaan laakiin waxaan leenahay caqabadka aad nolol diyaar garowdeen dana garab taagan tihiin waan soo dhaweynaynaa. waxaan kaloo salaamayaa ciddii iskuulkan quruxda badan mid hoose iyo mid dhexe ciddii ka qayb qaadatay ama dibad ha jirto ama gudaha jirto ciddaana waan salaamayaa rag iyo dumar cid kastaba ha noqotay waxaan salaamayaa salaada islaamtaan ku salaamaya. talabaad waxaan u ducaynayaa ciddii ka qayb qaadatay iyaga iyo waalidoontoodba ilaahay khayr ha siiyo amiin aakhiriya adduunkaba ilaahay midnoona baraka ha siiyo wixii dhintayna ilaahay ha siiyo janno firdowsa. taasina waa cibaado oo qolyaha qurba joogta ka wakiil ah ama iskoodo oo maxaan ku raada ilaahay khayr badan ha siiyo. حليمة أوغاسو إسكودو إلهي خير بدن هاسيو ماي أهاي مركي سوور ريسي مركي محان كورادا قفك انتي سوا والله شيغا
maalintii ay ka hadlaysay nagala hawlgashay maxaan ku radaa rugta caafimaadka maxaan ku radaa dharkayngeeyo iyo qaabkii ay wax u soo dhigtay iyo ficilka dareen kale ee ku taagan dadkeeda ay ka qabto iyo kuwii hawshan soo qalqaaliyay dhammaantood ilaahay waxaan ka baryayaa ilaahay akhriya adduunkaba inuu barakeeyo. ugu dambeyntii qaybo ka mid ah iskuulkaasi ayaa la dhagax dhigay iyadoo dhammaystirkiisa la filaayo inay soo gabagabowdo maalmaha soo socota. xamse raadeeye, telefishinka RTN,